anoo raba inaan ku weeraro gabar walaashay oo aad adiga qabi jirtay oo aad kala tagteen oo maanta xuriyad ah haddaan iska soo hormariyo ka war khamriga ma wuxuu idinka tusay gabar walaasha oo sharaf leh oo la qabi jiray oo Soomaaliyeed inaad iska soo hormariso wax kala ku hadasho ma yaalaan war waxa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada macalin channel asxaabtan cusub soo dhaweynaa kuwii hore joogana waa maasnila joogitaankeena waa video kale cusub iyo maalin kale cusub alxamdulillah anaku caafad qabnaa waxaan rajeynaa in dhammaantiin ka caafimaad qabtaan hergebkan runtii socdo aniga waa aroos yaraan galay laakiin hadda waa ilaahay isoo kaalmay alxamdulillah malaxaas waxaan dhahay aroosaan galay tiktok ma aqaan meel baan kusoo qoray kuwa waxay umaleeyeen hambaliyo mabruuq dumashi awe marka aroos laakiin meel kale aan ka waday inta faantay asxaabta waxaan rabaa inaan dul istaago anigoo caafimaad qaba ay jeedaan inaan dul istaago arrinta ku saabsan Shiin Coley iyo King CK labada nin isku cusub maahan dagaalkooda waxa uu maleeyaa wuxuu soo maray maxkamadda darajada koowaad darajada labaad darajada saddexaad maxkamadda sare hadda heeg u gudbay meesha ugu dambeysay lagu kala baxay waxa uu maleeyaa hadda kala bixi waayaan tii aakhirun bay sugayaan maxaa hadda soo cusboonaysay waa ashkuwa hadda ka hore mar isku dhaceen labada nin way isriqoomeen wax yar way iswaabiyeen adiga waa laba gool dhak waa lasbabsiyey ciyaarta waxay ku dhamaatay markaas 3-0 ugu dambeyn 3-0 markay ciyaarta ku dhamaatay adiga waa la kala guuleystay ciyaartaas 3-0 ciyaar gaarta ognahay in oo rigoori iyo waqti dheer loo baahnaanin waa lagu kala baxay taayada cidi guuleysatay ninka sheegaan ma sheegaan hadda maxaa soo cusboonaysay ciyaar lagu kala baxay 3-0 oo final la gaartay cidi koobka qaada kolba garan kartiin laakiin hadda maxaa soo cusboonaysay waxay tahay wixii soo cusboonay hadda muddo istaageeno laakiin waxaan rabnaa inaan ku soo koobo 3 qodob intaan guda galin ka hor 3 qodob waxaan rabay inaan runtii horta waxaan rabaa marka koowaad inaan Shiin Coley gooni u weeraro waxaa jirta Shiin Coley waxyaabo uu ku qalday markaas u fiirs CK-na aan gooni u weeraro kadib video gabagabadiisa waxaan rabaa inaan ku dul istaago labada qof ee qaldan asxaabta cusub kusoo dhawaada channelka waa ogahay war badan ay isweysiin maadaama aan isku magacaabay suldaanka YouTube-ka ani kaliya isku magacaabeen hadda mardhow caleem saari aan subax ba soo socdo marka inaan ku kala baxno arrintan ayaan rabaa runtii wixii karaankeyga ah inaan fikirkiina waa muhiim intaan guda galin videoga waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo asxaabta cusub ee nagu soo dirtay asxaabta cusub kun iyo koob maasantiin runtii internetka aan noo kala kicsan oo mas'uuliyiin ku kaleeto videogan ayaan runtii rabaa inaan dul istaagno marka koowaad oo uu soo dhigay bartiis TikTok ninka la magaciisa King CK kadibna aan falanqeyno wixii fikirkeena kaahiya xulw nin la yaqaan gaashaala sare kalarkiisa wata qofku weerarayo ku sabeeyo waa Shiin Coley libaha baa dhalay gaashaala sare taayada iska cadda shaqo ma jiro kaahiya loo yaqaan balse runtii King CK halka asaga markuu marayo waxaan rabaa inaan qabto magaalada Hawaii aan qabanaa waxay tahay wuxuu istaagay oo uu sheegay asagoo midkiisa qabo caafimaadkiisa qabo وعلى إكس مكس آتا معنا وعلى إسمارت فون. إنه كنولها أستري أو كمان قارة يروح. وعلى Shiin Coley waxaan rabaa CK markuu wax sheegay nin baahan oo waxa gaajaysan oo kisto odayga 3 waqti cunto ma helin camal farinjeerka uu buuxa ogahay nin shaqaysta waa Allah barakeen asoo alay taxal maskaxdiisa taama ay horta arrinta TikTok ka sheegay live qofka marka isku dhacda in iska celis way fiican tahay laakiin qaabka iska celinaysa qaabka ma Soomaali horana waxay u dhahday qofkii hadalku uu dhibo musnana lagu dhibaa CK waxaa jira waxyaabo aan ku taageersanahay shakhsiyan Shiin Coley waxaa jira waxyaabo aan ku taageersaneen oo runtii marka la imaado rag marka la dhaho ragtanimo marka la dhaho Shiin Coley waxaa jira waxyaabo qaar
oo ragga caado u ahaan uu shiino culi sameeyay inta badan wuxuu si toos u weeraray shiino culi uu ku tilmaamay inuu yahay wicil runtii nisha hadalka soo dhigay because wuxuu leeyahay aabahay oo eegay hiblo which means adi aabaha muu eegay waa fasiraad caadi oo loo qaadan kara inta aqliga u saaxiibka ah taa ayada horta waxaan dhahay ninka odaygu ku degdegay waxyaabaha oo kuleynaya dagaalka waxyaabana ka mid ah waxyaabo la isku adeegsanaya inta badan labadooda horta isku naxariisanayaan markay sheekada halkaa marayso shiino culi waxaan uu maqlay uu xanaaq odayga kadib wuxuu sameeyey ex wife manaal cirka Allah ka soo riday meel ka imaatay aan la ogeyn in kaar qabtada ayuu wacay wuxuu dhahay ticket soo goose soo bood iyagu ma Germany from Austria to Germany waa ogeyn isku dhib yihiin wax yar laakiin adiga waa distance yar waa ama odayga asaad doonay hadduu rabo gaari BMW wata shiino culi waa kacsiin odayga leesun haystaa marka uu shiino culi u arko in CK uu karbaashaya hadallo xun uu ku dhahayo asaga waxyaabaha uu ku xun yahay shiino culi waxay tahay inuu soo fadhiisto inta badan asaga waa hadal ilaahay oo dhiibay laakiin hadalkiisu wuxuu ku kabaa inta badan waxyaabo nacasnimo ah oo ay ka mid tahay inuu ex wife oo King CK ay kala tageen inuu gurigeeda ka soo kaxay gurigiisa uu keena oo dalxiis la joogo 4 maalmood 3 maalmood CK intaas markuu arkay asaga waa kana hadalkiisa intana ka soo haraysan marka anoo raba inaan ku weeraro gabar walaashay oo aad adiga qabi jirtay oo aad kala tagteen oo maanta xuriyad ah haddaa iska soo hormariyo ka war ninka walaasha waa ku sigay adigana aryaa haa idinku dhacay khamriga fiiri khamriga ma wuxuu idinka tusay gabar walaasha oo sharaf leh oo la qabi jiro Soomaaliyeed inaad iska soo hormariso wax kala ku hadashay halka marayso waxaan magaca daarood iyo ceebeen والله عادي يدي عيبانا يا كوان وايو كومنتيدا dadka kale ee qoomiyaha kale leh qabiilada kale markay idin fiirina waayo markaan leeyahay qofkii hadalku u dhibo ama musnaa lagu dhibaa waa markaan oo kaleeto CK marka asaga markay marxalad inta marayso waxaa laga rabay inuu san saaca ma loo dhiiqo loo galino waayo CK ognahay in nastan million qof ay ku xiranta waayo subscribers oo YouTube kiisa mu maleynayo qof oo individual ah marka individual leeyahay waxaan ka wadaa qof keligii hadda keligii meel fadhiya ani group kuma xirnay YouTube-kayga macnaha groupka ku xiran tahay ee marka keligaa tahay YouTube way kala challenge badan tahay inta YouTube jirta garan karto marka keligaa tahay way adag tahay in waxyaabo qaar aad ka mirdhelisid marka group ku xiran tahayna way ka fududahay oo waxyaabo badan ku sahlaan CK waa qof individual ah oo keligiis ah oo magaca Soomaali wato oo YouTube subscribers million ku dhow marka runta laga hadlo way jiraan YouTube far badan million dhaafay laakiin waa group ama waa studio oo group shaqeey ama shaqaalo hoostaga wax noocaas amal ah qof keligiis oo individual ah way adag tahay marka dadka million ku gaarsiiyay runtii horta waxaan ilaa CK qabiilka kali maahan waa Soomaali weyn oo dhan waa taladii aan rabay inaan CK siiyo tan shiino culi wadameysa taa aan rabay CK inaan siiyo waxay tahay waxa kugu xiran nastan qiyaas ahaan million dad ah haddii millionkaas maanta lagu soo hor istaajiyo waxaa u maleeyaa in amakaag iyo gacmataag u kaa soo haray way adag tahay inaa hadal ku qancisid marka loo fiiriyo marka fadhiisa waa qancin kartaa dadka kugu xiran waxaa ku jiro dad oo Soomaali meel walba ee degta aan dhaho kii Kenya degaya kii degaya Djibouti kii degayo wadankan la dhaho Ethiopia Somali State of Somalia am DDS sida loo yeero qof walba oo taqaano northern and southern part of Somalia inta badan aan dhaho dadka ay kugu xiran markaad inaad qancisid qofkan marka lagu hadhiiqo ku gelina wuxuu rabaa kalsoonida shacabkaas ay kugu soo raaceen inuu ka dhumiyo marka inaad fahantid oo aqligaaga qab waxay dhalaan Soomaali aqliga qab qiyaasta ku darso in lagu qiyaanin lagu hadhiiqo lagu gelin oo fikirta dhada qofkan okay asaga isqoonteen asaga isdagaasheen way islaamka shalay afurti marbu iskaga soo hormariya wax uu rabo weyn waxay tahay in uu adiga uu dhiiqliga ku gelay inuu adiga uu shacabka sharca ah heshay kalsooni ah gasbatay inuu ka dhumiyo inuu adiga oo runtii oo uu ku horseedo waxyaabo badan oo mustaqbalkaaga ay higsanaysa ka hor istaagi karo tan ay kamid ah marka application
adoo caytama lagu arko adoo aflagadoon lagu arko waxay noqonaysaa asaga nabada noqonaysaa wax ma dhamayst marka CK waxaan leeyahay walaalow soo laa wax yar ninkan da ahaan waxaan malay hadda isla ekeen inuu hal sano laba sano ka weyn qiyaasta marka la fiiriyo nin saa ka weyn horta ma ahan adoo konton jir ah waa maqlay shiin cali konton ma gaarin manuu dhow marka laga hadlo meelan markaa jirta 30 sano iyo markuu qof jiro 30 iyo uu jiro isku biirlateen soo fiiriyo subscribe dillah maanta adaa ka badan waxa meesha ku gaarteen waxa waaye maxaa la jiray aan dhaho kalsoonidaada iyo shacabka kalsooni ku qabaan shacabka asaga ahaa kalsoonida kasbatay horta inuu ka dhimo wax kala kaama dhumiyo wax kala marab ninkan manaalna wanaag afurtay I know inaa ku laaban mar dambe tin arag soo baxda waa saan maqlay inta kaftan waaye la soo celiyo soo laabanaa laakiin Shiin Culi waxaan dhihi lahaa I mean CK waxaan dhihi lahaa Shiin Culi oo soo laabanaa arrinta ka fiirso ninka deeqiyula ku gelin oo arkay asay group kale isku xiran waa magacawday ka mid tahay Captain Ayub sa u fahanay qof kale jira doono oo yaxbul ma aqaano ani yaxbul aqoon u mali TikTok sa u isticmaalo waa ark laakiin yaxbul qof ku yeelay qof ani aqoon u leeyahay sir gana u garnaa mu garnaa laakiin isilaali ya deeqil waa ku gelin inta sarwa inaan soo gobagabeeyo ninka waa CK Shiin Culi wuxuu noqday qof waxaan ku taami karaa dhaqamada marka la fiiriyo dhaqan rageed maahan waayo hadda ka hor waxay isku dhaceen ninka la magaciisa CK waa dagaal koowaad ay runtii kala gaareen nokal aruuriya hadda gaalta gaalahay muslim hadda muslim gaalahay macnaheedu heerka isla gaareen hadda kala gaareen rag ba ki heshiyo horta way heshin doonaan laakiin qaladku uu sameeyay ugu weynaa waxay ahayd oo CK aan ku amaanay bariga asay waxay ahayd CK markay qoftii ay kala tageen ee CK isqabsadeen isku dhaceen intuu gadaal ka maray ayuu qoftii macnaha abtiyaan u ahay iyo inta la cadeey waxyaabo oo runtii dhaqan ahaan diin ahaan aan munaasab ahayn ula imaan social media tii ayaga lagu karbaashay wuxuu ku cadeystay inuu gawin abtiga ayadana xeer abtiga okay wixii family waa family laakiin ninkan waa isaysiin marka isaysiin islaanta shar u furay sabab isku fureen ma dhaxgaleeno laakiin ha u dalmarin asii mid kala diis oo magaciisa la dhaho ma garanayo waa ilo inaan barto muhiim ahan horta arintaas sameeyeen haddana markuu arka CK inay wax yar isku qoomaanba CK si uu uga xanaajiyo dadka faraska waday ay garan kara faras marka la wadaayo waa la karbaashaa waxaa loo karbaasho waxay tahay inuu socod ka dheereeyo marka CK wuxuu rabaa I mean Shiin Culi wuxuu rabaa markay CK wax isku dhacaanba in oo deeqil wax uu sii geliyo meesha uu ku jiro inuu sii geliyo manaalo soo wada laba maalmood gaarigiisa Volvo saara ama gaari wata BMW wixii ma aqaano CK intuu arka deeqil wax galaan waa inta ugu badan waxaan dhihi lahaa inuu Shiin Culi arrinta ayada ku qaldan tahay wax dhaqan Soomaaliyeed ma ahan wax rag Soomaaliyeed oo isticmaalna ma ahan meelaha keentana ma naqaano runtii hadda family dhan inta badan dhaxdaa waa wata family asaga runtii waxaan dhihi lahaa waa in go'aan degdeg laga soo gaaro aday Shiin Culi waayo dhaqamada noocaas ama dhaqan ah kuma tili karta ma ahan shir weyne in la qabto waa ninka runtii loo sheego anoo suldaanka YouTube-ka inta sarana video soo gobay asxaabta CK waxaan leeyahay hore u soco deeqil waa loo gelin ninka Shiin Culi leen waxaan leeyahay arrintan ka fiirso ninka magac qabataan aad iska celi naga soo kaxaysan video inta soo gobay asxaabta asxaabta cusubna soo dhawaada channel-kana subscribe